madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobay oo hogaaminaysay oo qaabilsanaha arrimaha siyaasadda iyo nabadeynta xafiiska xukuumadda guud ee qaramada midoobay Mrs. Romaza Maria oo markaasi ka socotay xafiiska siyaasadda iyo nabadgelyada ee qaramada midoobay oo maanta wafdi hogaaminaysay ay soo gaareen magaalada Muqdisho. madaxweynaha oo kula kulmay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada waxaa lagu soo gudbiyay saxaafadda inay ka wada hadleen madaxweynaha iyo wafdiga qaramada midoobay arrimo dhowr ah oo ku tacalluqa wada shaqaynta qaramada midoobay iyo Soomaaliya. madaxweynaha waxa uu wafdiga ku wargeliyay in ay Soomaaliya ka go'an tahay xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta ay la leedahay qaramada midoobay iyo beesha caalamka kaasi oo ku dhisan ayaa lagu yiri qoraalka hufnaan iyo istixgelin. dhinaca kale wafdiga ay hogaaminaysay Mrs. Rosa Maria oo ka socotay xafiiska xukuumadda guud ee qaramada midoobay waxa ay kulan la qaadatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo saxaafadda dhankiisa la hadlay ayaa faahfaahiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen wafdiga qaramada midoobay wuxuuna sheegay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre in qaramada midoobay iyo Soomaaliya ay ka dhaxayso wada shaqayn isla markaana ay ka doonayaan qaramada midoobay in ay kala shaqayso deyn cafinta Soomaaliya. waxaan ku heshiinay in UN-ku ay sii xoojiyaan dadaaladii ay wadeen si Soomaaliya ay u gaarto meesha ay higsanayso. waxaan uga mahad celinay shaqada badan sanadaha badan UN-ku ama qaramada midoobay ay dadka Soomaaliyeed la garab taagnaayeen dhinac walba waana rajaynaynaa in ay sii xoogaysan doonto. waxaan ku heshiinay inay nagala shaqeeyaan dowladda Soomaaliyeed hadafyadeeda waaweyn oo ah in dhaqaalaha la kobciyo, in musuqmaasuqa lala dagaalamo, in deynta la ka cafiyo, in siyaasadda loo dhan yahay laga shaqeeyo oo la dhammaystiro waxa noo dhiman, in dadka Soomaaliyeed lagu caawiyo sidii ay waxbarasho iyo caafimaad u heli lahaayeen iyo sidii arrimaha amniga loo dardargeli lahaa. waxaa kaloo ku heshiinay in ajendayaasha looga shaqeynayo dalka Soomaaliya ay dadka Soomaaliyeed iyagu madax ka yihiin adduunyada oo ay ugu horeyso qaramada midoobay ay nagu caawin doonaan. waxaan ku heshiinay in si xoojino wada shaqeynta aan leenahay oo labada xafiiskooda iyo dowladda Soomaaliya ay wada shaqeyn doonaan. waxaa kaloo isla fahanay wax walba oo mugdi ku jiray, sidaas daraadeed waan u mahad celinaynaa waana kugu soo dhaweynayna waa mahadsanta. Abdulaziz Ibrahim Ahmed, TV Universal, magaalada Muqdisho.